dawladda waa baaq baan u dirnay baaqay waa ka jawaabtay khaasatan madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Diini amrigiisa Allah raajaan leenahay ajar dheeradan Allah ka siiyo kulan lagu soo bandhigayo xog hordhaca sahan lagu sameynayo biyaha magaalada Baran ayaa xalay lagu qabtay xarunta Hadaf dawladda Puntland oo ka jawaabaysa codsi bulshada uga yimi kulan toddobaadkii hore la qabtay oo maamulka iyo bulshadu ka wada hadleen xalinta baahiyaha jira ayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Diini ku amray wakaalada biyaha in ay ka hawlgasho sidii baaritaan iyo qiimeyn loogu sameyn lahaa biyaha magaalada Baran koox injineer oo hogaaminayo xildhibaan Cabdicasiis Dhahar oo sahminta iyo baaritaanka loo xilsaaray ayaa qaybaha bulshada kulamo la qaatay waxana la weydiiyay su'aalo waxana kamid ahaa hadaladii kulanka laga jeediyay markii halkan xogta laga qaaday iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka jira oo dhan ku mahadsan yahay wasiirka arrimaha guduhu shirkii Khamiista oo ka qayb galay ayuu barnaamijkan warbixintiisa ku daray sidii aanu ballantu ahaydna wuxuu ka dhigay inay tahay arrin emergency ah in laga jawaabo u baahan madaxweynaha oo u mahadcelinaa amar buu ka bixiyay halka meesha lafteedii wasaaradii ku shaqada lahayd iyo wakaaladii in survey la diro oo team la diro ayuu ku amray anuu halka sabtidii baan ka tagay intii aan joogay waxaan ku jirnay shirar iyo qaabkii hawshaas loo fulin lahaa والله الحمد لله بأنه أنا تيم كان إنجنير هذا أنه نصورة قشينا كسب حنو كروه وشيت كأن وين أم بديك فرسمه عن بالشدة وعد سنة عن stakeholders كوحوي ضدكو إني وقعدان بالهرك أي وحمريان هرك قرشها بيجرينتا أما إن بيالله للشوكتة بران هرك أمريو marxalada uu soo maray waxyaalaha lagu fakarayo go'aamada dawladdu ee qorsheysan ee dhawaan la doonayo in la qaato inay dadku ogaadaan ay la socdaan si ay qayb uga noqdaan oo ay u taageeraan resource-ga kheyraadka dhulka ku jira sahan ama xargal la dhigo ama qayb satada la sameeyo kaliya waligiis kuma guuleysan ama macdanaha ama petrolha biyaha waa isku system wax dhulka isku jira waxa weeye sahan baa la sameynayaa qodaal dhowr meelood oo kala duwan oo tijaabo ayaa la raacinaya waxa anagu aan soo kordhino cusub horta waa taas arrimo aan rabo inaad tilmaamo weeyo oo labada ceel oo runtii dhinacan raacinta laga qoday midna dixda laga qoday labadu waxay u fashilmeen oo fashilka keeni kara hadii dib loogu laabto waxa weeye waa arinta qodaalka sababta oo ognahay waxa khasab ah arinta hadda laga hadlayo bulshadu hadeerba in dhulkaas sahanku asteeyay ay u aqoonsato dhul danta guud oo Baran biyaheeda laga soo saarayo maadaama halkan waxa way geology ahaan cimilooyin kala duwan ay ka jiraan oo qayb waxa way didib ah iyo qayb kale waxa way raacdintaas ama aquiferka ay la yiraahdo orado ay ka jirto dadku waxay u baahan yihiin biyo ku filan quality-goodana la isku halayn karo marka waxaynu ka fakaraynaa hadii Ilaahay yiraahdo in waxa weeye assessment laga sameeyo hadda ka hor loo sameeyay anagoo kaashin wakaalada iyo organizations kala duwan partners kala duwan waxa weeye in la sameeyo waxa weeye coordination waxaan aad ugu mahad celinayaa cidii ka soo shaqeysay oo qaaday codkayagii aanu halka ka sheegnay waliba anagu koob ka ahaa biyaha barameed inaan sheego aad baan ugu mahad celinayaa cidii ka jawaabtay waxaan leeyahay hawlka madaale wali waa hogadii waa noo soo jawaabteen laakiin wali waxaan rabnaa natiijo dhab ah in aad noo qabataan xagga baarista ceelasha oo ay saanku hadeer inala joogaan saanka waxaan rabnaa lixda meelood inaydan ku sugnaane aan noo badisaan oo Baran biyo bay u baahan tahay aan la isku ladin dhigaheenu waxay aad ugu raacaysanayaan inaynu bal aragno biyo mar la soo saaray meel kasta baa laga soo saaray waan u mahadnaqayaa aqoon-yahanada baaritaanka sameeyay ma garanayno sida wax inoogu soo baxayaan iyo waxa dameeya populationkeenu waa sii koraya magaaladu waa sii badanaysaa baahida biyuhu way badanaysaa dawladda waa baaq baan u dirnay baaqay waa ka jawaabtay khaasatan madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Diini amrigiisa Allah raajaan leenahay ajar dheeradan Allah ka siiyo
waa uga mahadnaqaynaa waayo nimaan dee qofka wax loo qabto ku shukriyin qofka u mahadcelin waa taa waxaan leenahay madaxweynahan ducada u diraynaa iyo khayrkaas baran biyay rabtaa xubeero biyo badan bay leedahay rigaga laga soo saaray biyo qaraar bay noqdeen waa sida u sharaxaysa waxaan rabnaa dhaatadii halkan ee aad tiri waa lambar 1 ee biyaha macaan ah injineer waxaan doonaynaa taa madaxweynaha khayrka qabaana uu noo qodayo lacagtiisana uu qabo biyahaas aan rabnaa waxaan codsanaynaa oo rabnaa in aan la xisaabtan ay dhacdo baran waysnaqaanaa biyaha laynoo sahminayo yay rabadin jeclaysi iyo reer hebel iyo rabadintan aan degannahay iyo togan aan degannahay iyo meesha iyadaan la rabnaa aan ka saaro waayo waxyaalaha lagu khasaaray oo riyagii hore khasaaraheeda keenay waxaan dareemaynaa qodobkaasi inuu ka mid ahaa aan taa ka shaqayno labadaa qodob baa aniga i xoqayay in bulshaduna rabadin jeclaysi xor ka ahaato injineeradaasina loo daayo shaqadooda oo madax bannaan iyaguna daacad ay ka ahaadaan oo meesha bulshadu danta ugu jirto oo rabadinta ay u jeexdaan adduun iyo aakhiraba taasaa dani ugu jirtaa ayna ku baraarayaan bulshadana taasaa dani ugu jirtaa inay xor ka ahaadaan labadaa qodob baa i xoqaya aniga labadaa qodob baan aada u boorinayaa innaguna inaynu xor ka ahaano qabiil iyo guri jeclaysi injineeraduna ay daacad ka ahaadaan maadaama sahankii koowaad ay yihiin ceelal fara badan oo halka kan ama biyo raadin fara badan oo maaragtay ay ku dhacday failure saa sheegaysaan ama la waayay waxa mas'uuliyadda kow dadka xogta aan soo ururinay dadku qireen in aan la xisaabtan la'aan oo mas'uuliyadda la xisaabtan la'aantu labo in ceelasha cidda qodaysay iyo kontraktarada aan dabagal lagu samayn jirin saddex waxaan rabaa in dana gaar ah inta badan ay ku jirtay meesha oo ku labnayd xogta iyo fulintaba haway bulshada lagama qayb gelin jirin tala bixinteeda looma soo bandhigi jirin say wax marayaan aragti lagama dhiiban jirin waxaan rajaynayaa qodobka hadda kow inay tahay talaabadii koowaad oo laga gudbaayo xog noocaas jirta oo soo bandhigi doonaa dhinaca administration ahaan baan ka hadlaynaa anaga technical ahaan ka hadli mayno dibiga jooga baa la yiri war dheer dhegna wuxuu ka maqlaa biyo dhegna wuxuu ka maqlaa lama hayo reer baramoodku waa saas waxaanu nahay biyoy ilaa 70 sano u dambeeyay biyahaas waa lagu raadshugay war bal ololahan yaalaanu ku guuldaraysan hal la hubiyo meesha waa mahadsan yihiin injineeradu presentationka ay noo soo gudbiyeen 3 su'aalood oo quick aan baan weydiinayaa su'aasha koowaad waxay la xiriirtaa meesha potential zone-ka oo biyaha badan oo aad noogu sheegteen raacinta dherer intee la eg ayaa ceelka lagu gaarayaa ceelka laga qodo halkaa dherer intee la eg baa lagu gaarayaa tan labaadna miyaysan jiri karin goobo cusub oo aan kuwa ahayn oo biyo laga heli karo maxaa kaliya xadidaya inaad 6 goobood oo kaliya magacaawdeen in ay ku kalsoonaan doontaan inay biyo ka heli doontaan mase ka qayb galiseen bulshada iyo dadka ileedka gobol ku sugan in aad goobooyinka ay biyuhu ku isleeyihiin waa laga heli karaa wada tashi ka geliseen bise kaliya waxa la fariisateen dad yar oo kooban oo sida maamulka oo kamid yihiin oo farta meelo idinku fiiqay oo kale su'aashaan naga jahil bixisaaniin xildhibaanka iyo maamulkaba intaba waanu runtii aanu sugaynaa kuwa ugu dhow oo la heli karo oo ugu badan oo kamiyad ahaan ugu badan biyo badan oo mutawafira oo yani magaalada ku filan weeye hadafku iyo ujeedadu rabitaanka iyagu biyaha aanu codsanay waa biyo badan oo magaalada ku filan muhiim ah inay macaan yihiin muhiim ah inay adag yihiin su'aasheedu marka waxay tahay sidee probability-gan ay u aaminaysan haddii ay tahay xog hore idinku aydinan qaadin ma iyadaa isticmaalaysaan mise tan waxaad ka dhiganaysaan hage laakiin xogta aad idinku hadda samaynaysaan waa new oo waxaad ka bilaabaysaan platform cusub oo dabadeedna taa aad soo saartaan ma ku soconaysaan sababtaan saa u leeyahay waxa weeyaan dee kuwii horeba bulugyadan wayna tuseen waxayna lahaayeen probability-gu waa intaa waxaan kaloo markaa aan raacinayaa waxay tahay satellite-dadan waa la wada isticmaali jiray waana la isticmaalayay kuwaasuna way isticmaalayeen
sidaasoo kalena xariiqaa noo tusinayeen maxay tahay waxa ay kaga bedelan tahay maanta tan aad idinku isticmaalaysaan tan kantaroolka iyo meeshii in la dibindaabiyeeya waxaan filayaa horta Soomaalidu waxaan maslaxad ugu jirin oo dani ugu jirin bay inta badan nafta iskaga qabataa haddii qofka yiraahdo halakan iyo halakan iyo halakan annaga leh biyaha musii kaliya cabaaya biyaha sumagaada la keeni maayo waxa uu ku falayo hadda ceel meesha laga qodo halka laga qodo wax faa'iido oo qof ugu jira ama qoys ugu jira ma jirto waxaan markaa insha Allah rajaynaynaa arinta kantaroolka ceelka hadda waxa la sheegay dhiibka in la qodayaa huba oo hadii la 300 baan ku sabab 200 baa la qoday 350 baa la qoday arinta waxa mas'uuliyadeeda leh hay'adda biyaha iyo injineerada laana cid kale oo kantarooli kartaa ma jirto isku soo duuduub dhulka hoostiisa in wax ka doonaynaa ilaahay bayna saaqadiisa ka mid tahay in halkaas wax ka raadinayna niyadda hala wanaajiyo niyadda aan wanaajino in biyo helayno aan ducaysano si gaar ah si guudba ilaahay oonkayna ka saaro biyo la'aanta arinta la sheegayo la anagu biyuhu noocay yihiin baan rabnaa noocu doonaba ha ahadeena anigu waxaan qabaa hadaanu macaan helayno koow macaan baan noo biyo nadiif oo macaan oo biyaha de waxyaabo badan lagu qabsan karo haddii biyo macaan la soo waayana biyo un baa la rabaa anigu waxay idinku dhiirigelinayaa inaad dawladda la shaqaysaan u dhagnuglaagtaan wixii ka dhimanna u sheegtaan dhaliishana ha ku badinina insha Allah wax walba way noo hagaagayaan markaan xagga joognay aad baan nula soconay hadaf center barnaamijyadeeda iyo shirarka maamulka ay qabtaan ma hadda waxa iska leh hadaf center waxaan rabaa markaan inaan u mahadceliyo runtii madaxweynaha dowladda Puntland mudane Said Cabdullaahi Dani iyo wafdidii halkan oo ku timi oo ahayd xildhibaanadii xildhibaan Cabdicasiis iyo xildhibaan Axmed Kuluc iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyagu xambaaray fariintii reer Baramood ee halka ka fareen ahayd baahida biyaha wuxuu runtii degdeg buu uga soo jawaabay waxaan maleeyahay hal khamiis baa ka dambeysay khamiistii hore oo kal fadhigii hore oo ay fariisteen oo jawaabta celiyeen aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynuhu sida uu ugu dadaalay gobolkan waxaan leenahay anagu ka maamul ahaan ilaahay baanu ka baqaynaa idinkaanu idin tixgelinaynaa idin la mid baanu nahay